أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. محمد مرسي عياد waxa uu dhashay sanadkii 1951 waxa uu ku dhashay magaalada Cadwo oo dhacda bariga dalka Masar waxa uu ku soo barbaaray kuna hana qaaday isla dalka Masar waxa uu waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ku qaatay Cadwo kadibna waxa uu soo wareegay Qaahira caasimadda dalka Masar oo uu ka dhigtay waxbarashadiisii intii sare ilaa jaamacad Mursi waxa uu guursaday Najla Maxamed 30 November sanadkii 1978 waxaana alla kala siiyay 6 ubad ah عرضكيسا waxaa la yiraahdaa Dr. Ahmed Maxamed Mursi waa dhakhtar weyn oo ka howlgala wadamada Sacuudiga iyo Masar Mursi waxa uu bachelor degree ka qaatay jaamacadda Qaahira sanadkii 1975 dabadeed Manchesterka ayuu wuxuu ka qaatay isla jaamacadda Qaahira sanadkii 1978 oo ahayd sanadadii uu guursaday kadib waxa uu helay deeq waxbarasho galbeedka California ee dalka Mareykanka sababtoo ah waxa aad u sareeyay heerka uu ku qalin jabiyay shahaadada Manchesterka waxa uu California ka soo qaatay shahaadada PhD-ga qaybta injineerka waxa uu ku soo shaqeeyay gudoomiyaha kulliyadda injineerka ee jaamacadda Qaahiro sanadadii 1982 ilaa 1985 Mursi waxa uu ku biiray ururka Islaamiga ah ee Ikhwaanul Muslimiin sanadkii 1977 waxa ay jaamacaddu u dooratay xubin ahaan sanadkii 1992 waxa uu isu soo sharaxay golaha shacabka sanadkii 1995 waxa uu ku guuleystay golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Masar isaga oo matalaya jaamacadda Islaamiga ah ee Ikhwaanul Muslimiin waxa uu aasaasay xisbiga isbahaysiga Jamhuuriyadda Masar oo ka koobnaa 30 jamaaco oo kala duwan sanadkii 2011 waxaana loo doortay Mursi golaha wada tashiga ee ururka 30 Abriil 2011 Mursi waxa loo doortay madaxtinimada Jamhuuriyadda Masar 30 Juun 2012 si hufan oo xor iyo xalaal ah waxaana soo doortay dadka reer Masar waxaana hal sano kadib xukunkiisa si afgambi ah kula wareegay Cabdifataax As-Siisi madaxweynaha waddanka Turkiga oo la hadlay warbaahinta ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid Maxamed Mursi waxa uu yiri waxaan maqlay geerida Mursi markii aan gaariga ka soo degay laakiin nasiib darro waxa uu ku geeriyooday hoolka maxkamadaha waxaan alla uga baryayaa inuu u naxariisto walaalkan dibanaha ahaa waxa uu ahaa madaxweyne ku soo baxay oo loo doortay si dimuqraadi ah si aad la socotaan ninka xun As-Siisi waxa xukunka uu ku yimid si afgambi ah waxa uu dilay in ka badan 50 qof oo Masaari ah Mursi waxa uu si xaq daraa ugu jiray xabsiga 5 sano waxaan u tacsiyeenayaa dhammaan saaxiibadiisa isku dariiqa ahaayeen sidoo kale waxaan u tacsiyeenayaa qoyskiisa أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون